Kitaabkan Cabqariyatu Maxamed waxaa qoray qoraal lagu magacaabo Cabbaas Maxamuud Alcaqaad. Wuxuu caddeynayaa qoraaga in ujeedada buuggiisa aysan ahayn inuu uga hadlo siirada nebiga ama sharaxaadda islaamka, laakiin waa qadarin iyo weyneyn cabqariyadda Muxamed sallallahu calayhi wasallam. Arrintaas ay u arkaan Muslim iyo gaalba arrin jirta, sababtoo ah in la siiyo weynida xaqeeda waa arrin waajib ah. Wuxuu leeyahay Cabbaas wuxuu ahaa caalam kala go'ay, qarkana u saaran inuu burburo, ka luntay caqiidadii sidii ay uga lumay nidaamku. Dowladdii Roomaanka ay uga baxeen diinta dood aan miro lahayn. Farisna majuustii joogtay ay ku jees-jeesto diinta majuusta kale. Xabashidiina ay ku dhex luntay asnaamtii lasoo amaahday. Ummadahaas kala go'ay waxaa ku jiray ummad aan dowlad lahayn, gacanteeda uu ku jiro ganacsi aad u ballaaran, laga bilaabo khaliiju Faris oo hadda loo yaqaano gacanka Carbeed ilaa badda Ruum oo hadda la dhaho Albaxrul Mutawassit. Ummad soo jeeda oo kala taqaan kuwa xaasidayaan oo rabaan inay laqaan. Hiraql wuxuu u soo dirayaa Maka qof xukuma. Abraha al-Xabashina wuxuu u soo gurguranayaa inuu dumiyo Kacbada. Maka xaaladeeda way cakiran tahay. Dhinac waa damac, khamri, qamaar iyo dulmi socda. Dhinac kalena shalayti iyo shaki laga qabo inay arrintu hagaagi doonto. Quraysh Maka waxay ku ahayd laba dhinac. Mid ka mid ah waa asxaabta damaca iyo dulmiga waday. Kuwo kalena waxay ahaayeen dhexdhexaadiyaal u dhexeeya kuwa kibray iyo kuwa awoodoodu hooseyso. Nebigana sallallahu calayhi wasallam wuxuu ka mid ahaa qolada dhexdhexaadiyaasha ah. Wuxuu leeyahay nasab sharaf badan, mana lahayn hanti aad u badan. Nebiga wuxuu ahaa mid nasabkiisu sigsan yahay, kusoo qaatay nolol khibrad leh baadiyaha iyo magaalada. Wuxuu raacay xoolaha kana soo shaqeeyay ganacsiga. Wuxuu ka qayb galay dagaalada. Wuxuu u dhowaa kuwooda lacagta leh, mana ka dheereen kuwooda faqiirada ah. Wuxuu soo baxay xilli jasiiradda Carabta u diyaarsan tahay soo bixitaankiisa. Waa xilligii Ilaahay ugu talagalay inuu soo saaro. Kaatibku wuxuu nolosha Nebiga sallallahu calayhi wasallam u kala saaray qaybo kala duwan, qayb walbana si madax bannaan ayuu uga hadlay. Qaybta koowaad, Cabqariyadda Maxamed ee daaciga ah. Nabigeena sallallahu calayhi wasallam wuxuu lahaa codkarnimo, carabka iyo luqadda intaba ah. Wuxuu ahaa carab midka ugu carabsan. Caaisha radiyallahu canha iyadoo tilmaamaysa waxay dhahday: lam yakun ar-rasuulu sallallahu calayhi wasallam yasridu ka sardikum hada, walakin kana yatakallamu bikalaamin bayyin fasl yaxfaduhu man jalasa ilayh. Ay ula jeedo in Nabiga sallallahu calayhi wasallam hadalkiisu uu ahaa hadal cad oo yar, qofkii soo ag fariistana uu xifdin karo. Dhammaan asxaabtiisa, cadowgiisa, qaraabadiisa waxay u qireen in uu ahaa sallallahu calayhi wasallam runlow amaano badan. Wuxuu ahaa mid isku keena kalsoonida iyo quluubta dadkiisa. Dacwadiisana iimaan iyo kalsooni aad u sareysa ayuu u lahaa. Cabqariyadda Maxamed ee ciidan. Wuxuu leeyahay Cabbaas Maxamuud Alcaqaad oo ah qoraaga kitaabka, kuwa leh diinta Islaamka waa diin dagaal. Hadalkoodu wuxuu run ahaan lahaa bilowgii Islaamka, markay kumanaan soo islaamay ay mushrikiintu dhibi jireen oo seefta la daba joogeen. Muslimiinta intaas way sabrayeen ilaa laga amray inay dagaalamaan ayagoo wadajir ah, sida gaaladu ay hal dhinac uga soo jeedo. Dagaaladii Nebiga kulligood waxay ahaayeen difaac, kumana jirin dagaal weerar ah, markii laga reebo weerar uu u qaaday kuwa ku adkaystay inay la dagaalamaan sallallahu calayhi wasallam. Waxaa soo qaadanaynaa Napoleon Bonaparte oo ahaa ninka ugu taatikada badan ee gaalada tusaalaha usoo qaadato maanta. Napoleon Bonaparte
wuxuu diiradda saari jiray ugu horeyn siduu awoodda cadowga u cirib tiri lahaa. Wuxuu dooran jiray dhulka ugu habboon iyo meesha ugu habboon, cadowgana wuu kala hormari jiray isdiyaarinta iyo weerarka. Nabiga sallallahu calayhi wasallam ayaana isticmaali jiray oo uga horeeyay dhammaan taatikadaas oo faahfaahsan. Nabiga sallallahu calayhi wasallam qof ma gardaraysan jirin, laakiin hadduu ogaado inay ka go'an tahay inay la dagaalamaan, uma sugi jirin intay kasoo weeraraan. Sidoo kale Nabiga sallallahu calayhi wasallam ma sugi jirin cadowga intay go'aan ka qaataan oo arrintooda dhinac u dhigaan. Wuxuuna xulafadiisa ugu hiilin jiray si daacad ah. Napoleon wuxuu dhihi jiray, marka la isku fiiriyo awoodda macnawiga ee ciidanka iyo awoodda tirada ciidanka, waxay u dhigantaa 3/1 uu kala jeedo in awoodda macnawiga ah ay tahay 3/2 xoogga iyo jiritaanka ciidanka. Nabigana taatikadiisa waxay ku dhisneyd xoogga iimaanka uu Alle ku qabo. Mucjisadan iimaanka uu Nabiga haystay si walba uma dhiganto awood walba oo macnawi ah uu isticmaali jiray Napoleon. Sidoo kale Napoleon ma moogeen in cadowga dhaqaale ahaan la hareeyo, oo wuxuu ka hortagi jiray ganacsiga Ingiriiska inuu gaaro qaaradda Yurub. Sidaasna Nabiga ayaa uga horeeyay oo kula dagaalami jiray Quraysh tijaaradeedii. Napoleon wuu ku xadgudbi jiray taatikada dagaal iyo qorsheynteeda, oo wuu isla weynaa. Saas ay tahay kama maarmayn la tashiga ciidankiisa markay arrintu adkaato. Muxammad sallallahu calayhi wasallam fikirkiisa buuxa wuxuu la tashan jiray asxaabtiisa, taladoodana wuu qaadan jiray, oo wuxuu qaatay taladii Suleymaan al-Farisi oo ahayd in la qodo god dagaalkii Khandaq. Ma jiro hogaamiye ilaa hadda ku gaara Napoleon indhaynta, feejignida, aragtida dheer iyo ugaarsiga. Laakiin Nabiga sallallahu calayhi wasallam dhammaan intaas asaga ayaa tusaale loogu soo qaataa. Dagaalkii Badar wuxuu weydiiyey tirada ciidanka ee cadowga waa imisa. Ma naqaano ayay ugu jawaabeen 2 nin oo ceelka kor taagneed. Kadibna Nabiga wuxuu weydiiyey tirada geel ay qashaan. Waxay u sheegeen in 10 halaad ay qashaan. Nabiga sallallahu calayhi wasallam wuxuu dhahay, qoomku waa 1000, geel walba waxa ku aadan 10 nin iyo wax la jira. Wuuna asiibay tirada cadowga sallallahu calayhi wasallam. Wuxuu ahaa sallallahu calayhi wasallam mid u wakiisha xog aruurinta meel walba, dadka ugu dhow oo ugu ogaalka badan. Wuxuu iskugu yeeri jiray fadhi la dhaho majlisul xarbi. Qof walbana fadhigaas wuxuu ka sheegi jiray wuxuu khibrad u leeyahay ee ku aadan taatikooyinka dagaalka. Cabqariyatu Muxammad ee siyaasadeed. Hadduu dagaalku dhibkiisu daran yahay, siyaasadda ayaa ka daran. Dagaalka haddaa u qaadano mid lagu soo afjaro hadalka, arrintana lagu meel dhigo, siyaasaddu waa iska daba laalaabasho iyo xaquuq oo la qaato ayadoo dhiig aan la daadin, gorgortan la isla galo si loo gaaro ujeedo ayadoo aan laga tanaasuleynin mabaadi'da. Nabiga wuxuu bilaabay inuu ugu yeero dadka xajka sanadkii 6aad ee hijriga. Muslimiinta kaligoodna kuma ekeen ee wuxuu ugu wacay carab oo dhan inay soo xajiyaan. Sidaasna wuxuu ku sameeyay hal qadiyad ay carab iyo muslimiinta uga soo horjeedaan Quraysh. Sidoo kale wuxuu sameeyay hal maslaxad oo ah in ay soo xajiyaan. Halkaasna waxaa ka baxay shuqulkii ay Quraysh mar walba sameyn jirtay oo ahaa in ay carabta Nabiga ku diraan. Nabiga wuu soo baxay heshiiskii Xudaybiya asagoo xaaji ah, aan dagaal u socon. Siyaasadiisana waxay ahayd inuu aqbalay shuruudihii ay dalbatay Quraysh dhammaantood. Taasna waxay ahayd tilaabo aad u diblomaasiyeysan. Waxay ku heshiiyeen in qofkii Nabiga u yimaado oo Quraysh kasoo islaamo inuu u soo celiyo, qofkii Nabiga kasoo tagana aan la soo celin. Heshiiskaasna wuxuu ahaa heshiis nabadeed. Nabiga suuban sallallahu calayhi wasallam muusan ku shardinin Quraysh inay u soo celiyaan qofkii kasoo taga, sababtoo ah qofkii islaamay oo haddana islaamka ka laabtay ma ahan qof muslim ah ee ayaga ayuu ka mid yahay.